سورة الكافرون. سورة الكافرون وسورة مكية waxay ka mid tahay quraanka soo degay intuusan nabiga sallallahu alayhi wasallam uusan hijroon. Suuradan waxay soo degtay markii ay kufaar Quraysh ay yiraahdeen Maxamed waxaan nala caabudaa asnaamteena hal sano anaguna waxa ku la caabudeynaa ilaahaaga hal sano. Nabiga sallallahu alayhi wasallam munaasabadka suuradan akhri jiray waxa ka mid ah labada salaadood ee sunnada salaada subaxda ka horeysa tan dambe witirka tan dhexe ee labada salaadood oo dawaafka tan dhexe tan dambe. Nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri suuradan waxay u dhigantaa quraanka afar meelood hal meel. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillah alla magaca ayaan ku bilaabayaa Allih Ar-Rahmaan naxariista guud ahaaneed lahaa Allih Ar-Rahiim naxariista gaar ahaaneed lahaa. Qul dah yaa ayyuhal kaafiruuna gaaloy laa a'budu ma caabudayo maa asnaamti tacbuduuna dacaabudaysaan walaa antum idinkuna ma tihidiin caabiduuna kuwa caabudaya maa allihii acbudu aan caabudayo walaa ana aniguna ma ihi caabidu mid wax u caabudaya maa cabadtum ay ka cibaadatikum sida aad wax u caabudaysaan walaa antum idinkuna ma tihidiin caabiduuna kuwa wax u caabudaya maa acbudu ay ka cibaadatii sida aan wax u caabudaya lakum waxaa idii sugnaaday diinukum diintiina oo kufriga iyo shirkiga ah waliya anigana waxaa ii sugnaaday diinii diinteyda ikhlaaska iyo iimaanka ah.